qofka zaaniga ah waxyaalaha ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira uu ku ciqaabo waxaa ka mid a cumri degdega ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a in isaguna kamaa tadiinu tudaan siduu isaguna u sinaystay in ilaahay ku ciqaabayo ahalkiisa mid kaloo shaydaan in ilaahay isagana uu qoorta u geliyo oo ahalkiisa laga sinaysto asagana hadduu haweeney la qabo uu ka sinaysto isagana xaaskiisa in laga sinaysana gabar hadduu ka sinaysto la dhalay isagana gabadhiisii in laga sinaysanayo kamaa tadiinu tudaan sidaad u dhaqanto ayaa lagula dhaqmo cuquubaadka yacni lagu ciqaabayo adduunyada ayay ka mid tahay walidaalika waxau yihi nin shaacira ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ina الzinaa daynu wuxuu yihi zinadu daynay kugu tahay fain aqradtahu haddaad qof amaahiso kaana alwafaau min ahli beytika faclami waxaad ogaataa aalu beytkaaga in deynka laga jari doono ogow laasim waxaa waaye qofka hadduuba zaani yahay isagana adduunyada waxyaalaha uu ku ciqaabayo waxaa ka mid a in asagana ahalkiisii iyo qoyskiisii sidaasoo kale loo fadaraynayo gabdhaha kale siduu u fadareeyey oo cirdigoodii iyo uu ugu tuntay oo akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii uu u baabi'iyey sidaasoo kale asagana gabdhihiisa in loo gelayo ina الzinaa daynun fain aqradtahu kaana alwafaau min ahli beytika faclami ahlu beytkaaga ayaa laga jaray waxaa imaamu اlbazaar kitaabkiisa musnadka uu ku wariyey waina furuuja الzunaati latu'dii ahla الnaari binatni riixihaa inuu yihi nabigu salى اllahu عalayhi wasalam waina furuuja الzunaati kuwa zinaysta cawradooda latu'dii ahla الnaar binatni riixihaa wuxuu yihi nabigu salى اllahu عalayه wasalam ahlu naarkaa ku dhibtoonaya qarmuunka farjigooda malaxda iyo dhiigga ka qulqulaya dadkii kaleoo dembiyada kala galay oon zinada gelin oo ahlu naarka ahaa sankay ka qabsadaan oo waxay leeyihiin rabbiyow waxaan maxay tahay soo karaya waxaa naarta nagu dhibay oo cuquubadii iyo cadaabkiina haystaba nooga darnaaday muxuu yahay markaasa waxaa laleeyahay waa furuuju zunaat waa dadkii zinaystay cawradoodii malaxda iyo dheecaanka ka shubmaya way qarmuunka ad arkaysaan marka waa cuquubada khaaska ah ee ilaahay subxaanahu watacaala aakhirana uu ku ciqaabayo adduunyadana in cumri deg deg lagu rido amraad iyo xanuunno aan la garanayn ayaa ilaahay ku sallidaa subxaanahu watacaala xanuunkan hadda adduunku uu daawo ula yahay la yidhaaho addaacuun almucaasir daacuunka casriga oo loo yaqaano aidiska loo yaqaano inta badan boqolkiiba 95 wuxuu ka dhashaa zinaduu ka dhashaa way dhici kartaa asbaab kale inuu qofku u qaado oo maalan qof yacni xanuunkan qabay oo viruskan qabay in maaragtaay maqas uu ku jartayo yacni dhididkiisa ama dhiiggiisa uu maqaska taabtay in asagana loogu jaro way dhici kartaa haddii ilaahay u qadaro laakiin taasina waxay ku xihan tahay maqaadiir ilaahay in ilaahay u qadaray subxaanahu watacaala way dhici kartaa haweeneydii yacni markay umulayso maqas lagu jaray haweeney kale oo xanuunkan aidiska qabta in iyadoo beri ah oo zinaysan oo waxyaalaha aan shaqo ku lahayn in si khalada maqaskan iyadana loogu jaro dhiiggii iyo dheecaankii isagoon laga gubin oo jeermiskii aan laga dilin in iyadana lagu jaro sidaa ay ku qaado waa suurtagal waxyaalo naadira taasoo kale aidiska uu ku dhici kara laakiin boqolkiiba 95 wuxuu ku dhacaa dadka xaaraamta yacni galmada xaaraanka sameeya oo cumrigooda ilaahay ku dedejinayo oo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira noloshoodii uu ku ihaanaynayo adduunyada soomaalida hadda dembiyada ku yar ayay ka mid ahayd zinadu xilligii hore soomaalidu waa isdhici jirtay yacni waa islayn jirtay dhiigga waa daadin jirtay laakiin jariimadan iyo daahiradan zinadu way ku yaraan jirtay aaday ugu yaraan jirtay laakiin wakhtiyadan dambe markii uu soo kordheen filimadan iyo facebooka iyo waxyaalaha internetka dhallinyaradu ay isweydaarsanayaan oo haweenkii iyo raggii iyo ficil wixii samaynayaba dhallinyaradii ay fiirsanayaan markay ku ta'asureen oo ay ku saamoobeen ficilkii oo kale inay samaynayaan ayaa shaydaankii u qurxiyey taasi marka waxaa ka dhalatay waddankii xanuunkan aidiska inuu nisbaba hadda ku yeesho percentage inuu ku yeesho oo la yidhaha boqolkiiba Soomaaliya imisa viruskaas ka xambaarsan
saasaa hadda percentage u yeeshay yani nis buu yeeshay ewel lagama oqoon jirinba nabigu salى الlahu عalيه wasalam xadiiska ibnu maajah uu warinayo wuxuu ku yidhi lam tadhar الfaaxishaةu fii qowmi xatىa yuclinuu biha ilaa fashaa fiihim الطaacuun wاlأwjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madow nabigu salى الlahu عalيه wasalam wuxuu yidhi haddii qola faaxishada iyo zinadu ay ka daahirto ilaahay wuxuu ku imtixaanaa xanuuno awowayaashood aysan garanayn awowayaashii hore xanuunno aan ku dhicin jirin oo weligeed awowayaashood aysan maqlin ayaa ilaahay ku ibtileeya subxaanahu watacaala waxaad arkay hadda maaragtaa yani in dadkii la xanaanaynayo oo soomaalidii qaybo ka mida xanuunkan intuu ku faafay galmadan xaaraamta boqolkiiba 90 wuxuu ku yimaadaa zinadana uu ku yimaadaa ilaahayna wuxuu ku ibtileeyaa subxaanahu watacaala kuwa xaaraanta iyo intihaakul xurumaad samaynaya ayaa lagu ibtileeya waxaa kaloo qayb ka mida waxyaalaha zinada faafinaya waxyaalahan dhallinyaradu ay isku tuurayaan waa xaaraan dhallinyaradu waxyaalahay isku tuurayaan oo facebooka la isugu tuurayo ama yani shabakaadka cankabuutiya waxyaalahan loo yaqaano la isugu tuurayo waa qayb zinada ka mida haweeney yani maalan yani wixii samaynaysa ama qaawan haddii qof aada u tuurtid dembigii iyo fidnadii qofkani uu ku fidnoobo adigaa laguu qori isagana waa loo qori goonidiisa ilaahay subxaanaه watacaala wuxuu leeyahay jala jalaaluhu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishaةu fi اladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi اdunya wاlaakhira fi اdunya wاlaakhira yuxibuunu ilaahay ka cabiro kuwa jecel faaxishada iyo zinadu inay ku faafto yacni iyagii ma aysan zinaysan laakiin way jecel yihiin zinadii inay mujtamaca ku faafto ayay jecel yihiin ina aladiina yuxibuuna أن تشيiع الفاaحشhaة في الذيiنa آaمنوا لaهم عadاaب أليiم في الدuنيا والآkhرة addunyadana ilahay wuu ku ciqaabi aakhirana ilahay wuu ku ciqaabi marka haddaad aragtid haweeney qaawan ama nin qaawan aad aragtid waxyaalaha faaxishada samaynaya layg ha saarin haddaad layg saarto zinadii aad faafis ha sheergarayn haddaad sheergarayso ama layg aad saarto zinadii aad faafis waxaadna soo geli aayadda ilahay uu leeyahay jala jalaaluhu ina الadiina yuxibuuna an tashiica الfaaxisha kuwa jecel faaxishadu inay faafto leanna waad faafinay mise qof aad u tuurin faaxishadii aad faafinayso marka waxaa weeye bahashani waa cuquubo ilaahay subxaanahu watacaala qabla alaakhira ilaahay uu ka daahirinayo mujtamacii ay ku dhex faafto xaddu zaani almuxsani haadaa midkani xaddu zaani almuxsan qiso yara waxaan rabay runtii kitaabkan dhexdiisa kitaabkan intii aan waday kitaabkan hadda inoo socda intaan waday haweeney markaan casharka ka baxay ayaa galab halkaa ii istaagtay haweeneydii ninaa la socda yani aniga weligey ma isdhehayn soomaalida waxaasoo kalea ka dhex dhacay ninaa la socda haweeneydii ninkan marka waxay leedahay bal sheekhow inuu iga furan yahay iyo in kale bal inoo fiiri sharciga inuu iga furan yahay in kale sharciga inoo fiiri muxuu sameeyaan waxay tihi ninkan markii hore wuxuu fiirsan jiray filimada iyo haweenka iyo ragga qaaqaawan oo faaxishada iyo zinada samaynaya waa ninkaygii intaasaan uga digay waxaan saameynay kugu yeelanaya akhlaaqdaaday bedelaya diintaaday dhaawacaya sharafkaagay dhaawacaya waxaan iska jooji waa iga diiday markii dambe waxay tihi ninkii waa xanuunsaday markuu xanuunsaday gabar isagu uu dhalay ayaan idhihi tiri aabbo u qube aabbo u qubee waa xanuunsan yahay markii gabadhii aabbo u qubee aan idhi gabadhii wax ka dayi tiri walciyaadu billaah waa aabbe casharka markaan ka baxay gabadha halkaa ay istaagtay gabadhii wax ka dayi tiri gabadhii ma aysan sheeginay tiri waa iska aamustay waa ka cabsatay mar kale mar afraad ilaa mar shanaad oo sidii oo kale uu ku sameeyey marka bal inaan ka furanahay iyo in kale kan rajo igama jirtee bal sharciga ii fiiriyay tiri marka waxyaalaha cajaa'ibta leh qaraa'ibta ah weliga isma lahayn cumriga Soomaaliya iyo waxaasoo kale ay ka dhacay waa aabbe gabadhiisii wax ka dayay
qofaa ii sheegtana ma dhahayo iyagii isdacweynaya aniga ii yimid toos igu yimid marka waxaa weeye waxyaalahan yacni qalabkan shabakaatul cankabutiya iyo facebooka iyo waxyaalahan la faafinayo akhlaaqdii mujtamaca way dileen mujtamaca akhlaaqdiisii way dileen way baabi'iyeen